hadda aniga asiga waxa isla nooleynaa wax yar ninka wuu imaaday Mareykan oo ku imaaday markuu imaadayne waxa dhacday in isfahmi wayno awal baqalaasya 2 sano iyo bar ilaa iyo 2 sano dhibaatadayna way taagneed familkaynana way ogaayeen tani waa qiso xanuun badan waxaana ka sheekeynaysa gabar Soomaaliyeed oo tilmaamaysa in imika ay ku sugan tahay xaalad xanuun badan qisada gabadhan waxay ka ilmeysiisay dad badan waxaana baahiyay mid ka mid ah telefishinada Soomaaliya ku yaala oo lagu magacaabo RTV gabadhan waa la wareystay waxaana ay la hadashay TV-gan lagu magacaabo waxaana ay ka warbixisay xaaladda haysata qisadeeda waxay ku bilowday sidaan sanadkii 2019 ayaan isguursanay nin aan aad u jeclaa ninkayga waxa uu ka yimid wadanka Mareykanka muddo ku siman 2 sano ayaa khilaaf dhaxdeena uu ka jiray mana jirin xilligaasi xal rasmi ah oo khilaafkeena aan ka gaarnay dhowr mar ayuu igu hanjabay inaan guursan doonin nin kale sababta sidaas uu igu yirina waxay ahayd khilaafkeena dhaxdeena ka jiray xilligaasi daraadiisa muuqaal qaawan ayuu iga faafiyay isagoo raaciyay lambarkayga waxaan sidoo kale ugu tilmaamay inaan ahay qof tumata aniga meehi ruux tunta balse isaga waxa uu iga dhigay inaan ahay qof tumata dad badan oo damac xaggayga ka soo galay ayaa isoo wacay iyagoo i weydiinaya muuqaalada qaawan iyo sidoo kale waxa ay yihiin fariin kasta oo la ii soo diro ama ii soo dhacda waxaan u maleeyaa inuu yahay muuqaalkayga oo qaawan in la ii soo diro aniga habeen iyo maalin ma seexdo waxaan aad ugu walwalaa muuqaalkayga oo qaawan oo dad badan loo sii dirayo isla markaana uu ku sii faafayo baraha bulshada dadkaas waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ha faafinina muuqaalkayga waxaan ahay walaashiina oo kale fadlan ninkaasi qabay aniga ayuu u xumeeyay sida daraadeed xaaladan ku suganahay ma qiyaasi kartaan dhamaantiina waxaa sidaas tiri gabadhan oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa gabadhan ay sheegtay in lagu magacaabo Ramlo waxaa loo qariyay wajigeeda sabab la xiriira xaaladda gabadhan ay ku sugan tahay waxaa dhinaca kale gabadhan ay tilmaamtay in ninkan uu yahay mid aad u xumeeyay dhaawac weyn uu gaarsiiyay qalbigeeda waxaana ay sheegtay isla markaana maray cabiraysa dareenkeeda ay tiri waxaan dareemayaa xaalad murugo badan waxa igu adag hurdada waxaan dareemaa mar waliba inaan ahay qof isla hadlayo waxaa laga yaabaa qof kasta oo wadada iga soo horbaxo inaan u maleeyo in teleefankiisa uu ku jiro mid ka mid ah muuqaaladeeda oo ninkaas sida qaldan uu iga faafiyay muuqaalada ma ahayn kuwaan anigu raalli ka ahay laakiinse xilligan xalaasho isku ahayn ayuu si qaldan muuqaaladaas oo aan ogeyn u duubtay sida daraadeed waa waxa ugu weyn ee hadda uu ku hanjabo muuqaaladan waxaan ugu tilmaamaa inaan ahay qof tumata waa dareemi kartaan qof laga hayo muuqaal video waa qof aan hurdi karin isla markaana aan harsa karin sidaas waxaa tiri gabadhan oo xaalad xanuun badan imika dareemaysa xitaa hadii qofka aan furiinka ka qasbado mise aan kuleeti aan qabsado wuxuu rabo ha sameeyo waa la hadlay anigo codan u duubay qoraal oo qoray asigo waxaan dhahay malaga iga rabtaa mustaqbal daba iga rabtaa oo kale ma aniga inaad sharaftayda iyo sumcadayda iyo mustaqbalkayga damba inaad baabi'isid maad rabtaa horanu ii yiraani ina mustaqbal aan ku furo mustaqbal adduun aadan ka yeelanin ama sanin kale oo san ku guursado taas laga mayaab horo yiri waxa uu soo hadlay in sharaftayda ina hadla ku jirto daydana aan loo arkin ina raali ka ahay waxaan 4 saac ugu waayay wax 4 saac ka seexa waayay hadana meelan wax ka bilaabay iyo dadka cid ila diraysa aanan ogeyn cid kasto video-gayga hayso iyo cid kasta to asiga kala shaqeynayso waa ogahay asii bisma sameynaa dad baa kala shaqeynooyo ina ilaahayga u baqaan maanta ninkii noolne 1 second kadib oo nafta ilaahay ka soo doonad karo mase biri sida aniga ay haysato walaashiis qabsanayso waxa uu sheegaya dadka haysa video-yaashayda loo diray sida dhaqan ku xun loogu diray in iska taleedaan iska tirtiraan taasaan ka codsan ummadda Soomaaliyeed ee u gaar video-gaygo